Bismillahirrahmanirrahiim kulanti haboon nabadaawadayaal halkani waa ogaal TV ku soo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa Soomaalida qodobada ugu waaweyn warkeena waxaa kamid ah dowladda Imaaraadka Carabta oo gudoomiye aadan madoobe kala hadashay qorshe meesha looga saarayo farmaajo iyo xog dheeri oo ka soo baxaya kulanka safiirka Imaaraadka iyo Sheekh Aadan Madoobe ku dhaxmaray magaalada Muqdisho villa Soomaaliya oo war lama filaan ka soo saartay dib u doorashada farmaajo iyo afhayeenkiisa oo xog badan banaanka keenay dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya oo heshiis kula Addis Ababa iyo xogta heshiiskaasi uu saxay wasiir aad ugu dhow ra'iisul wasaare Roble ayaana warkeena ku soo gudbi doona xukuumadda Soomaaliya oo muddo kordhin ka dalbatay mid kamid ah hay'adaha dhaqaalaha adduunka iyo jawaab lama filaan ah oo hay'adaasi ka timid iyo dhoobo daareed oo banaan keenay qorshe halis ah oo Soomaaliya la damacsan tahay Puntland qodobadaas oo faahfaahsan ayaad warkeena ku daawan doontaan ee daawadayaal marka hore subscribe inoo saara barteena YouTube-ka sidoo kale like iyo follow inoo saara barteena Facebook-ga ee Ogaal TV waa hagaag daawadayaal aan ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maantay wuxuu magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed kulanka oo ka dhacay hooga gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe ka degaya magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay arrimaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee la filayo in ay 15 bishan ka dhacdo magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale la xoogay noo sheegeen si gaar ah safiirka Imaaraadka Aadan Madoobe kala hadlay sidii uu u taageeri lahayn kaarka la fiyo madaxweynaha muddaxileedkiisu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii la xusuudu ugu jirto in loo doorto madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya safiirka Imaaraadka ayaa sidoo kale gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe la wadaagay fariin hambaliya oo ugu sido madaxda sare ee dalkaasi wuxuu ugu hambaliyeen ku guuleysiga doorashada guddoon golaha shacabka baarlamaanka 11aad gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa danjiraha Imaaraadka Carabta kula dardaarmay in si laba jibaaran dadaalada horumarineed ee ka wadaan Soomaaliya iyo si xoojinta xiriirka labada dowladeed ee walaalaha sida lagu sheegay qoraal kooban oo la soo dhigay barta Facebook ee golaha shacabka Imaaraadka iyo Farmaajo ayaa siyaasad ahaan 5 sano soo dhaafay aad u kala fogay kadib markuu Farmaajo uu si indha la'aan dagaal khaliij kula saf dowladda yar ee Qatar waxaana hadda Imaaraadka dhaqaale fara badan ku bixinaysaa in Farmaajo uu markale noqon madaxweynaha Soomaaliya dhowr musharax oo ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa la sheegay Imaaraadka siyaabo kala duwan dhaqaale u taageerayso doorashada madaxweynaha Soomaaliyeed siyahayaha wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Senator Ismaan Abuukar Dubbe oo maalmin la soo dhaaf ku sugnay dalka Itoobiya ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Itoobiya oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dowladeed iskaashi dhinaca warbaahinta Itoobiya iyo Soomaaliya wasiirka warfaafinta Itoobiya ayaa qiray in Soomaaliya xilligan aad ugu horeyso warbaahinta cusub ee social media iyadoo Itoobiya aad ugu xooganta warbaahintii hore labada wasiir ayaa kulanku intuu socday waxay isla soo hadal qaadeen dhibaatada iyo fidinta wararka been abuurka ee fake news-ka ee ku hayaan amniga iyo doonimada si la iska kaashan lahay in wadajir looga hortago kulanka labada wasiir ayaa waxaa sidoo kale xoog lagu saaray iskaashiga labada dal dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo sidoo kale warbaahinta waxaa dhinacyada isla garteen in la wada goleeshiisa arrintaas ku saabsan mustaqbalka dhow kulanka ayaa waxaa ku wada safiirka Itoobiya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir iyo xogaha koowaad ee safaaradda Cabdullaahi Cabdirasaaq markaana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weydiistay hay'adda IMF in dib u dhigto muddo 3 bilood oo dheeraad ah qiimeynta dib u habeynta barnaamijka dhaqaalaha kaasoo mudaysan 17 bishan ee May oo ku beeg 2 maalmood kadib xilliga doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya warqad si wadajir ah u saxeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele gudoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa dowladda ku sheegtay inaysan awoodin in ka qayb gasho dib u eegista barnaamijka dib u habeynta IMF muddada loo qabtay bil kasta waxaa jira gaabis 10 milyan farqiga u dhaxeeya dakhliga dowladda soo galay mid ka baxa saaxiibada Soomaaliya caalamka waxay joojiyeen taageeradii miisaaniyadeed ee si jira Soomaaliya kadib doorashooyinka dib u dhacan ogeed deeqaha taageera miisaaniyadda 2021 waxay ahaayeen oo kaliya 38 milyan markii la barbar dhigo 170 milyan oo la filay miisaaniyadda inay gasho ilaa haddana dhaqaalaha la siiyo Soomaaliya oo qayb ka ah qoondada IMF 2021 oo gaaraysa 157 milyan ayaa kaabid u ah dakhli yareyntiisa laakiin taageeradaas ayaa dhammaan doonta dhowrka bilood gudahooda haddii ay Soomaaliya helin kabka miisaaniyadeed deeq-bixiyaasha dib u dhaca doorashada iyo dakhliga dowladda oo yaraada ayaa ka mid ah sababaha keenay in dowladda codsato muddo kordhinta barnaamijka dib u habeynta maaliyadda IMF ka caawisa Soomaaliya ayaa lagu sheegay warqadda muddo bila dowladda federaalka Soomaaliya
ayaa ka aamusnayd arrintaasi waxaana codsiga muddo kordhinta IMF dowladda Soomaaliya ka codstay ka dhigan tahay inaysan dowladda Soomaaliya ka soo bixin xilliga loogu talagalay inay ka qayb qaadato dib u eegista kaalmo 3 sano soconaysa oo gaaraysa ku dhawaad 400 milyan oo hay'adda IMF ku taageerayso inay taageerto barnaamijka dinacafinta Soomaaliya ayaa si otomaatig meesha uga bixi karta haddii aan la meesan hanaanka dib u eegista maaliyadda Soomaaliya ayay yiraahdeen khibraha dhanka maaliyadda dib u dhacan ayaa leeyahay waxay keeni kartaa in halis gasho barnaamijka dinacafinta Soomaaliya iyo kaalmooyin kale iyo mashruucinta horumarinta iyo kabka miisaaniyadda Soomaaliya lama oga in IMF ogolaan doonto in kale hase yeeshee muddada loo qabto Soomaaliya ayaa waxay sabab u tahay dejinta guddiga doorashada oo shalay ku dhawaaqday in 15 bishan la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa hagaaga daawadayaal weli waxaad daawanaysaan warka oo idinkaga imaanaya Ogaal TV markaan eegno afhayeenka madaxweynaha madaxweynaha soo dhamaaday Maxamed Xaashi Duqa ayaa ka hadlay doorashada guud ee madaxweynaha taasoo loo madalsan yahay in 15 bishan ee May ay dhacdo Cabdirashiid oo hadal ka jeeday munaasabad gaar ah waxa ka dhacday magaalada Muqdisho ayuu ku dhawaaqay eryada mafilaana sida madaxweynaha dib loo doortay isagoo tusaalenaya doorashada madaxweynaha ay dhici doonto maalmaha soo socota aniga waxaan tusaaleysanayay in 15 bishan May oo maalinta loo madalsan la doorto madaxweynaha iyagoo ka soo warramaya goobta baarlamaanka wiliye kamid ah gabar wiil mid doona ha ahaadee oo ku dhawaaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda oo dib loo doortay ayuu yiri afhayeenka filan Soomaaliya hadalka ayaa waxa ka falceliyay dad yoo fara badan oo siyaabo kala duwan ka hadlay damaca ku jira kooxda filan Soomaaliya ku aadan dib u doorashada Farmaajo filan Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furaysa oo la doorashada Farmaajo kadib markii guddiga doorashada ku dhawaaqay doorashada la qabanayo 15 bishan May sidoo kale kooxda ayaa adeegsanaysa hal ku dhig la yiraahdo isbedel doon ka socda oo loo fasirin karo in isbedelku xukunka ku yimid Farmaajo oo weli aaminsan yahay inuu yahay mid socda si kastaba Farmaajo ayaa la filayaa in maalmaha soo socda daafuro oo liisa doorashada xilli hal isbuuc kaliya ka harsan tahay taariikhda loo aasinaado doorashada guud ee xilka madaxweynaha ugu dambeyn daawadayaal guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Cabdixakiin Noobe Daareed oo shir jiraa'id qabtay ayaa ka hadlay shir la sheegay in dhawaan Soomaaliya ku qabanayso gudaha magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag Noobe Daareed ayaa markii hore iska baryeelay shirkaas wuxuuna tilmaamay inuusan qayb ka ahayn abaabulka sidoo kalena uusan ka qayb galin waxaan cadeynayaa oo iska baryeelaya oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland u sheegaya shirkaasi waxaba ayna anagu kala socon kana ogeyn kana qayb galin kana mid ahayn ayuu yiri Cabdixakiin Noobe Daareed guddoomiyihii hore baarlamaanka Puntland oo hadalkiisii wata ayaa shir ku tilmaamay inuu yahay shirqool siyaasadeed oo Soomaaliland u dhigayso Puntland gaar ahaan beesha Warsangeli oo degta gobolka Sanaag si uu qabsado deegaanadaasi shirkaasi waxaan ka aaminsanahay ama u arkay inuu yahay shir magaciisa ku habboon yahay loo bixiyo ama loogu magac daro shirka shirqoolka siyaasadeed ee la yiraahdo ayuu mar kale yiri guddoomiyihii hore baarlamaanka maamulka Puntland hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo u dambeysay hadal xoogan hareys shirkaasi oo haatan abaabulkiisa ka socdo magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag halka Soomaaliya ay wado dhanaayo ka dhana ah maamulka Puntland guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararka Ogaal TV amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh